السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمر لبادنا نبات قواني هرفدي وولاشين داقة يوتيوب channel كادنا غلا سعودانا ويوتيوب channel كيني ويوتيوب channel كيني تبتتوصل أصحابتا انت هورين ولسي جوجتا وحالينا هادي هاد بود مهدسنتهين انت نقول عصبنا وحالينا ما شاء الله قاع مفرن iyo walaalo jecel ku soo dhawaada waa maanta iyo muuqaal cusub ma sha Allah maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay sida titalka ka soo aragteen deeqay ayaantan waa lagu waayay muddo adiga 3 toddobaad ah amba bil ku dhawaad ah abaaya xagee ka dhacday dad badan baa hortii soo wareystay ma sha Allah aad baad mahadsantihiin deeqa way nabad qabtay alxamdulillah aad iyo aad baan wanaagsanaa ma sha Allah Allah subhanahu wa ta'ala wax dhib ah oo ku maqnaa oo maanta ni sheegi karaa ma jirto laakiin se kulay dad baa islaha walaalay gabadhu waxay gaadhay meel ma turki ma aadamiisa soo qurxinaysay bal horta sida markaad eegtaan ya maxaad isleedihiin deeqa bal maanta way iska soo bedishay bal maanta iyo shalay deeqadii aad daawan jirteen oo taqaaneen maxaa ku soo beeray ma afkay soo samaysatay ma faruuriyahay soo duratay ya ma indhaha ayay ma sha Allah ma marka hore gabadhan waxay ahayd gabadh indha waaweyn xoogaa walaalay bal raadiya meesha waxaan ku yiri wax laga soo bedelay Turkiya jiray miyaan indhahayaa amaliyad miyaan aaday ma is soo qurxinaayay ya xoogaa ma meel waxa aaday as ku soo caateeyo horta qacma iska jira malihi ma sha Allah alxamdulillah kulli maanta jaakad weyn baa sitaa waxa is duubaayo waa subaxda horena waa iska qabo guriyaha kulli qaahira ayaan joogaa qofkii soo joogay ama soo arkay ayaa jawigeyga yaqaana waa meel markaad banaanka u baxdo kulayl ah oo samar moodayso laakiin marka aad guriga ku jirto u baahan inaad jaakad xidhato amba qabowga ay guriyuhu soo tuurayaan inaad marka ahaan naftaada aad ka ilaaliso ma sha Allah anoonan sheekadan igu dheereenin horta waxaan leeyahay waa soo nabad noqday alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale ma sha Allah aad iyo aad baan anigu xiisay waxaa dareemi jiray marka aan meeshan ka hadlaayo inaan leeyahay bulsho amba dad ma sha Allah aan rabo fikirkayga inaan la wadaago jecel inayna i dhageystaan waqti ay igu bixinaya waan iga mahad celinayaa markasta waqtigeena quruxda badan leh ما شاء الله إن أتكون بحسان إن الفيديو داوتان فضلا sidoo kale waxa ka rajeynaya in aad noqoto mid markaad videogeyga aragto noo sii gudbiyo maadaama aan nahay channel cusub oo hadda soo kor aan rabno inaan u soo qaadno aad iyo aad baad mahadsan tahay dadka maanta 1 milyan ka tiigsanaya kulay dad Soomaaliya baa fartooda ku saaciday ama like u saaray ama subscribe ka u saaray adna waxaan ku leeyahay dadkaasi maanta waxba nama dheero amba aniga ahaan wax ay dheerihiin ma jirto waa dad Allah subhanahu wa ta'ala maskax sideedoo kala siiyay waa dad raba hadaf nolosha inay ka gaadhaan anigana maanta hadafkaas oo kale ayaa leeyahay waxa jeclaan lahaa inaanad iga reebin oo horey ii sii wado mid ayaan ka codsanayaa aad iyo aad baad mahadsan tahay kulli hada subscribe ku waad saartaan u maleeyaa ما شاء الله مر لبعض يا مر صدحات يا كاجم هذا علينا يا قرينا واكر لها نسان حوجا شمبرات شوجا معلم بداون دونتان إن شاء الله مركا أدي أدبض ما هتصنتهاي وحكولي هاي أيام تن عمليات لكم مغنين أنت ورير سنة ويسلا هايسا قبردي محربة هاي حربة كسو درستي ما إندها أي سو سمي سنيسي mise sanka ayay xoogaa horta sankaygan ma sha Allah alxamdulillah aniga waa ku faraxsanahay laakiin dadka xoogaa waxa la dhahaa sanka waa marka alxamdulillah aniga sidoo Allah subhanahu wa ta'ala ii abuuray ayaa ku faraxsanahay waayo Allah subhanahu wa ta'ala waa ka yiri laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay inuu ibnu aadanka uu abuuray midka ugu qurux badan quruxduna waxa weeyaan maadaama maanta hadaan qabo 6deedii lixaad oon maanta lugahayga ku socdo oon indhahayga wax ku arkaayo oo waxaan ku yiri aan neefsanayo hawada qaadanayo waa nicmooyinka Allah subhanahu wa ta'ala loogu shukriyo halka maanta ay jirto dad u baahnaan lahaa hal mar inay arkaan qofka hor jooga ay soodkooga maqlayaan oo anigana Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmadii basarka uu siiyay adigana aad haysato sidoo kale waxaan ku leeyahay waa mid mudan in loo shukriyo laakiin si hadalka yaan igu daalin deeqay maxaa ku maqnayd su'aasha waa la iska sugaayay
jawaabtuna waatan. waxaa ku mashquulay familka in kamid ah ayaa usoo guureysay wadankan Qaahira amba dalka Qaahira soo degaysay. dad familka ayaa wadankan Qaahira usoo guurinayay ayaantan guri raadis waxaan ku jiray shaqo dheer. marka adiga daawanaya haddii aad tahay mid daneeya inuu Qaahira mal dalxiis u imaado insha Allah nambarkayga ayaa halkan kusoo dhigi doonaa, waad nala soo xiriiri doontaa guryaha iyo sidii aad usoo degi lahayd iyo waxa lagaaga baahan yahay. waayo waxaan rabaa mid talaana halkan inaan uga diro gabdhoy maanta dhan haddaa leedahay waa shaqaynayaa Yurub in shaqaan ka hayaa maxay baan ka hayaa, lacagta aad maanta ku shaqaynayso kulley wax aad dhigata meel maahine waa wax nolol maalmeed kale iyo dad kale biilkooga aad usii dirto. laakiinse midda maanta ugu wanaagsan eed waqti gelin kartaa amba dhaqaalaha Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyay aad gelin kartaa waa awlaad inta ay yar yihiin. dad baa aniga mar waxa la soo weydiiyaa deeqay waqtiga ugu wanaagsan oo qofku yacni ilmihiisa meel diin leh amba u keeni karo waa goorma. maanta ayaan rabaa su'aashaasna inaan bibli kula wadaago. gabadhay haddaa tahay mid danaysa in ilmaheega hay u guurto wadamada muslimiinta oo maanta joogta amba Mareykan amba Canada amba Yurub meeshay doonay ahaatee, waqtiga ugu wanaagsan eed ilmahaaga wax aad bari karto amba diinta muslimka aad ku barbaarin karto waxay tahay ilmuhu intuu yar yahay. dad waxaan arkaa markay imanayaan Qaahira waraysto igu dhaha ilmo waxaan wadanaa 12 16 18 20 dadkaasi waa dadka marka ay soo guuraan ay guryihii iyo wax kasti ay dhigtaan isla markaaba ilmihi ay dhahaan no aniga magaaladan kamaan helin haddii carabi iyo luuqad aanan aqoonin inaan maanta dhan masaari daba istaago uma baahni halay celiyo. dadkaasoo kale hadday ugu bataan waxay joogaan 2 bilood, hadday maamadu sii rafaadana sanad bay joogtaa kadibna waxaan ku yiri ilmihii waa la celiyaa. laakiin waqtiga ugu wanaagsan eed ilmo aad la soo haajiri karto amba aad ilmo wax bari karto waa ilmuhu intay yar yihiin ay ku ogol yihiin halkan baan geynayaa iyo waxan baan maanta baranaynaa ay yar yihiin ee qacantaada ku jiraan. waa from 5 marka laga bilaabo ilaa 10 ilmuhu hadduu ka wen yahay waxaan ku oran lahaa nololkaagana iska soo khasaarin, tigirkaagana iska soo khasaarin, meesha aad joogto in Allah subxaanahu wa ta'ala ha kugu xafido awlaada. laakiin haddaad tahay qof danaynaya in ilmaheega ay intay yar yihiin wax ay barto oo weliba diinta ay barto, waxaan ku leeyahay ilmuhu intay yar yihiin ayna 6 jir gaadhin ayaa wanaagsanaan lahayd inaad wadamada muslimiinta aad keento si ilmuhu diintii ugu barbaaro oo yacni u arko waxde noloshiisii kamid ah u arko. midda kale aan rabo inaan ku dhaho waxay tahay ilmahaaga waqti geli. waayo dadka maanta hooyooyin kale wallahi waa jeclaan lahaa ilmahayga inaan la soo aado wadan muslimo oon diin baro, laakiinse ehelkii iyo familkii ayaan maanta waxaan ku yiri quutal daruurigooga u tuuraa. Allah subxaanahu wa ta'ala qof kasta wuxuu halkaa marinayo oo risqiisa maalinta uu 40 beri caloosha hooyadii ku jiray ayaa risqiisa iyo goortuu dhiman lahaa iyo camalkiisa in Allah subxaanahu wa ta'ala uu qoray. qofna maanta u dhiman maayo $100 amba $200 maanta Afrika u dirto, qofna u dhiman maayo qofku uu noolaan ilaa intii ajashi si ay ka gaarayso. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaana magaciisa cadiimka ah isku sifeeyay inuu yahay rasaaq. qof kastina meeshuu jooga Allah subxaanahu wa ta'ala isaga ayaa arsaaqadiisa iyo ummadiisa uu cuni lahaa siinaayo. qofna dhiman maayo ilaa inta ceeshkiisa ugu dambeeyay uu adduunkan ka cunay. waxaan ku leeyahay ilmahaaga mustaqbal diiniya oo ibrito la kugu soo xasuustaan u sameeyaan ku leeyahay. videogeygana ugu dheeraaday sababtaan ku maqnaana midaas ayay ahayd. family ayaa magaalada soo degaayay marka maadaama aan ahaa qof magaaladii joogta gurigii waxaan ku yiri iyo hawlo kale badan ayaan ayaantan ku mashquulsanaa. xoogaa markan hawshii dhameeyay waxaan isir naftan in la dhibo ma wanaagsanay, xoogaa iska naso deeqay ayaan isdhahay. masha Allah aad iyo aad baad maasantay videoga dad halkan soo gaadhay. haddii aad danaynayso inaad wadankan Qaahira aad timaado ama waxaad uga baahan tahayna telefonkeyga halka ayaan kuu soo dhigi doonaa, waadna la soo xiriiri doontaa. aad iyo aad baad mahadsan tahay. intaan video xigaan ku kulmi doono waxaa ku leeyahay sidii caadadeena noo ahayd waxaan ku salina xabiibkeena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.